subax wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, qaraabo iyo axsaabba, family and friends. Kusoo dhawaada channelkayga Kawawa Food Channel. Maanta waxaan inoo sameynayaa nooc cusub. Marka hore waxaan qasaneynaa rootiga ayaan qasaneynaa. Kadib waxaan noogu xigo waxyaabahan dhexda ka gelin lahaa. Laakiin marka hore waxaan sii qasaneynaa rootigii iyo waxyaabahan ku sameysan lahayn. Ilaah duraali ka noqdo. Halkan waxaa diyaar noogu ah fixisada rootiga ayaa diyaar noogu ah. Waa ujeediin akhyaarta. Halkan waxaa diyaar noogu ah 400 ml oo ah biyo kulul. Halkan waxaa diyaar noogu ah buuro. Waad ujeediin. Halkan waxaa diyaar noogu ah xabad ukuna. Halkan waxaa diyaar noogu ah saliidda aan cuntada ku shiilano, cusbo. Hadda waxaan isku dardareynaa ilaah duraali ka noqdo. Habkii aan rootiga u kicin lahayn ayaan sameysaneynaa insha Allah. Hal teaspoon, laba mar oo ah hal teaspoon iyo hal xariijin labo oo laba mar ah. Hadda waxaan ku shubaneynaa hal teaspoon kow, hal teaspoon laba iyo hal xariijin laba oo u dhiganta qaadada kafeega. Kow waa ka dhiman wasaca kale ayaan soo qaadaneynaa insha Allah. waa kaasaa waxaan ku shubaneynaa hadda ilaah duraali ka noqdo 400 ml oo biyo kulul ah. Okay, waxaan ku dareynaa insha Allah buuraheeni oo ah 1 tablespoon. waa qaadada aan bariiska ku cunno ayay u dhigantaa 1 tablespoon. iyo 1 tablespoon oo saliidda cad ee aan ku shiilano raashinka oo hal xaba ah. waxaan kaloo ku dareynaa insha Allah wax yaroo cusbo ah oo qiyaastana ay tahay qaadada kafeega kasii haafkeeda. waan markaan idin leeyahay qaadada kafeega haafkeeda waa 1/4 teaspoon. 1/4 that means hal xariijin 4 qiyaasta ah. intaas ayaan isku qaseynaa khiyaarta. kadib 10 to 15 minutes ayaan daboolayaa si ay u soo faxdo. waa ila socotiinaan u maleynayaa. raali noqda. si fiican waa inoogu qasmay. hadda waan daminaynaa waana dabooleynaa insha Allah si uu inoogu soo faxdo. waa ujeedina u maleynayaa
10 to 15 minutes ayaan sugeynaa. markuu si fiican u soo faxo waxaan ku dareynaa ilaah hadduu raali ka noqdo plain flour oo 4 koob ah. halkii koob koobka aan idin sheegayana waa kana. so halkii koob wuxuu u dhigmaa 250 milliliter. so that means haddaadan haysan cabirka koobka oo guriga ku oolin waa dhici kartaa waxaad ku cabiraysaa cabirka milliliterka ah 250 milliliter wuxuu u dhigmaa hal koob oo ah qiyaastaas. marka hadda 10 ilaa 15 daqiiqo way ka soo wareegatay. fixisadii waa inoo faxday waa inoo qamiirtay. marka hadda waxaan ku shubanaynaa 4 koob oo halkii koob u dhigma 250 milliliter. burka aan ku sameynaynana saa hore idinkugu sheegay waa plain flour. marka hadda waa inaan isku darnaa waa isla soconaayaan umaleynaa khiyaarta. afar xabo oo burkaan aan ku darsanaynaa insha allah. afar bakeeri oo aad u buuxdo waa isla soconaayaan umaleynaa insha allah. waa 4 bakeeri oo aad u buuxda waa isla soconaa. koow labo saddex afar marka hadda tartiib ayaan horta ugu shidayaa si aysan noogu soo daadaadan amba aysan burka meel kasta uusan inoogu gaarin. ilaah hadduu raali ka noqdo. number 1 ayaan ka dhigayaa horta sidaas u dhaxgalo. xabadii ukubkana hadda ayaan ku ridayaa. ujeedin hadda marka wadana waan dabooleynaa ilaa hadduu raali ka noqdo. another 15-20 minutes ayaan dabooleynaa ilaa hadduu raali ka noqdo. markuu soo faxo ayaan waxaan ugu talagalnay aan ku rideynaa insha allah.
15 ilaa 20 daqiiqo kale ayaan sugeynaa. meel xoogaa aan qaboobeen oo qandac ah ayaan dhigaynaa insha allah. isla soconaayo maleena khiyaarta. hadda marka waxaan rabaa in aan idin tuso waxyaabaha kale oo aan rabo inaan gudaha ka geliyo waxa ay ka kooban yihiin iyo habkaan u sameyn lahayn insha allah. shiikan waa ka dhamaysanay, uma baahnin. halkan waxaa diyaar inoogu ah khiyaarta. aan inoo soo dhaweeyo. halkan waxaa diyaar inoogu ah, waad ujeediin aan maleynayaa insha allah. anigoo waqtigiina qaaligana ah aan xushmeenayo oon ilaalinayo. halkan waxaa inoogu diyaar ah 250 gram oo spinach ah. so kulli ma u baahnin, waan kala qaybinayaa. 125 gram ayaan ka rabaa. it depends familka intuu yahay. hadduu familkaaga badan yahay halkaa wada samaysanaysaa, ma fahantay? marka aniga marka haaf un baan rabaa. halkan waxaa igu diyaar ah 1 feeto oo chicken breast ah. halkan waxaa diyaar inoogu ah 3 xabo tuun ah. inta waxaa diyaar noogu ah 2 xabo basal baar ah, basasha dheer caleenta. inta waxaa diyaar igu ah 2 xabo oo ah salad cheese oo halkii xababa uu ka kooban yahay 200 gram. so that means labada bac waa 400 gram. 2 xabo tomato fresh ah. intana waxaa diyaar noogu ah natural yogurt, Greek natural yogurt. Greek natural yogurt iyo qajaarkaas waxaan ka sameynayaa dressing. markaan isku sameynayna waad arki doontiin dressing aan rabaa inaan ka sameeyo. laakiin intaan kaleeto hadda chicken breastigaan nadiifinayaa. sidiisa isagoo ah ayaan digsi biyo yar gaaban ku saarayaa. carfiskiisa cusbadiisa kulli waan ku darayaa. marka qiyaasta qof walba qiyaastiisa cusbada iyo dhadhanka iyo carfiskana isagaa yaqaana. iyo spinachkii oon sii dhaqdo, oon kala qaybiyo, oon sii dhaqdo. marka hadda waan nadiifinayaa. markaan wax walba nadiifiyo ayaan isku soo noqoneynaa. halkan waa kan chickenkii waan soo nadiifiyey. biyo qiyaastii korkiisa la siman ayaan ku shubay. hadda marka waxaan ku daraa ilaa hadduu raali ka noqdo 1 tablespoon oo carfiskii ii shiidnaa ah. ilaa hadduu raali ka noqdo waxaan kaloo ku darayaa insha allah bahalkii maaji. isba dhan uma dhaweyneyno. maaji oo ah 1 teaspoon, waa 1 teaspoon. marka hadda waan isku daboolayaa si uu tartiibkiisa u karo. markuu biyaha dhammaaday oolyo dhan maku daraysid, maku daraayo oolyo dhan aan dhihi lahaa. biyaha markuu dhammaado waxaan ku jijibinayaa qaado. ma shiidaayo, laakiin qaado unbaan aan jagjagja ku siinayaa si uu si fudud oo jajaban uu ugu soo baxo. marka hadda qudaarteennina inaan jarjaranno waaye. digaaga intuu noo saaran yahay waxaan sii jarjaranaynaa insha allah tuunteenii oo kale. waxaan kaloo sii jarjaranaynaa basasha ilaah hadduu raali ka noqdo. on small slice aan ka dhigeyno.
ma rabo markasta waqtigiina inaan dhumiyo aad ayaan uga xumahay waxaan jeclaa markaan bilaabo shaqada ood aragtiin waxa aan rabo inaan sameeyo ood ila fahantiin in aan kaamirada iska damino sababtoo ah waqtigiinaan rabaa aan diidayaa in aan dhumiyo oo videogaas amba clipkaas aan duubaayo oo nagu dheeraado waa ifahmaysiinaan u maleynayaa aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa sida fiican aad igala xiriirtaan YouTube channelkayga aad ugu xiran tihiin supportiga aad isiiseen aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba saaxiibada qaaliga ah familada qaaliga ah ee ku xiran channelkayga waa inaan aad u yaryareennaa sidii annagoo sambuus ku dareenna ama qudaarta sambuuska oo kale in loo yaryareeyo waayo marka ma rabo inaan waqtigiina dhumiyo sidaas ayaan u wada yaryareenayaa insha allah tuntii basashii sidaas ayaan u yaryareeyay laba xabo basal baara iyo 3 xabo tuun ah aad ayaan u yaryareeyay intana waa 2 xabo oo fresh tomato ah hadda spinachka ayaan yaryareysaneynaa isagana marka mar raba ani waad ogtiin inaan waqtigiina dhumiyaan diidayaa qof kasta wuu yaqaanaa sida wax loo jarjaraayo marka waxaan jeclaan lahaa in aan markaan wada diyaariyo aan isku soo laabano ilaaha hadduu raalli ka noqdo axsaabta chicken-keeni waa kaasaa waa inoo diyaar lama rabo markuu dry aad noqdo inaad ka bixisid waa inuu dheecaankaas yarka ah uu ku jiraa meesha hadda marka qaadadan ayaan ku jajabinayaa makiinadku ma shiidaayi mar alla markaan jajabiska dhammeeyana habkaan isugu dardari lahaa ayaa ila aqyaarta marka hadda spinachka waa ogeedeen sidaas ayaan u jarjaray mindi unbaa ku yaryareynaysaa ma shiidaysid mindida unbaa ku yaryareynaysaa soo hadda waxaan rabnaa in aan isku wada dardarno waxaan halkaanito ku darayaa ilaah hadduu raalli ka noqdo 1 teaspoon waa 1 teaspoon oo ah maaji waxaan kaloo ku darayaa ilaah hadduu raalli ka noqdo babrik qaadada kafeyga haafkeeda qaadada kafeyga aan dhihi lahaa waa 1 xariijin 2 waxaan kaloo ku darayaa chili powder it depends kuleelka halka sida aad u rabtid ilaa hadduu raalli ka noqdo iyadana waxaan ku darayaa 1 xariijin 2 teaspoon dadaa kuleelka badan jecel dadaan jecleen waa kaasaa ciyaarta so hadda waxaan ku dareennaa kabsarteennii tomaadkeennii chickenkii oo dhan ayaan hadda marka ku dareennaa ilaa hadduu raalli ka noqdo markay sheekada halkaas inoo marayso hadda waxaan ku darayaa basashii iyo tuuntii halkaan ayay inoogu wada jirtaa waxaan ku darayaa 2 xabo tomaat freshka ah oon yaryareeyay
waxaan ku darayaa xabadii chicken breastaha ahaa oon qaadada ku yaryareeyay maanan shiidin. waxaan ku jarjarayaa marka cheeskii oo halkaan asna inoo yaala. labada xaboo jiiska waan ku dhameynaynaa. biyo saporito noqonayaa insha Allah markaas. inta markay sheekada intaas inoo marayso waan isku wada qaseynaa. si fiican ayaan isugu qaseynaa. ujeediin saan ayaan u fidiyey. marka hadda waxaan ku dareynaa qudaarteennii aan diyaarsanno isku qasannay ayaan ku shubeynaa. isla soconnaayaan maleynayaa maaha wax dhib badanna waa ku soo daboolay. waa ujeediin markaan saas ugu soo dabooshid ayaan waxaan samaysanaynaa xariiqmo yar oo saas u jaran. ujeedaa waa isla soconnaaya u maleynayaa. isweydaar ayaa isugu qabanaysaa. waa saas sheekada. mid kasta badeelihiisa ayaad saaranaysaa. haddana foolid mid kale ayaan sameynaynaa insha Allah. hadaartu waa yareyn kartaa, hadaartu waa weynaysan kartaa, adiga ku jirtaa sida aad ku jeceshahay. qiyaasta adaa og. kan ayaad ku soo laabaysaa. waa ujeedaa extra wixii ah waad saaraysaa koonarada. marka hadda waan kanna in yaraan gaabinaynaa. sidaas ayaa u jarjaraysaa. marka isla soconnaayaan umaleynayaa. kan ayaan ku soo laabeynaa. kanna dhinacaan ayaan marsiineynaa. adiga waxaa la rabaa isweydaar inuu noqdo oo keliya. waa ujeedaa maaha wax dhib badan. maahan wax dhib badan. si
sidaas inuu ku soo baxo waaye isweydaar kulli marka meeshaasaad ku safanaysaa. axsaabta marka xabadii ugu dambeysay waaye, sababtoo ama rabin inaan waqtigiina qaaliga ah aan dhumiyo. waa ila socotiinaan u maleynayaa. hadda marka waxaan in yarka jarayaa geesaha si aad u aragtaan habka aan u sameeyey. marka hadda waxaan ku dareynaa qudaartii aad ogeedeen habkaan u sameeyey. waan ku soo laabayaa markaas in yar anoo hoos u dejinaya. kadib kan ayaan jarayaa extrada ah, xariiqin ayaan ka dhigaynaa. waa ujeediinaan u maleynayaa. so hadda waa ujeediin, kan ayaan xagga keenayaa, kan ayaan geeskaan keenayaa, haddana midkaan ayaan halkaan keenayaa, kan ayaan sidaan yeelayaa. bidix midig waaye axsaabta. waa qurxin un waxaan waa kaantiin maleena sidaas waaye. waa easy soo badeelaha hadda saaraneynaa. wax yar ayaan meesha isaga dhaafeynaa, kadibna foornada ayaan gelinaynaa. ilaah hadduu raalli ka noqdo. 4 koob wuxuu noo noqday, intaas qayb ayuu noo noqday. waa ujeediin aan u maleynayaa 4 koob wuxuu noqday 3 iyo 4 7 iyo 5 piece ayuu noqday. in yar ayaan maraan korka saarayaa 10 minute kadibna waan gelinaynaa. ilaah hadduu raalli ka noqdo. ovenkana waxaan ka dhigayaa 170 degree ilaa 25 ilaa 20 ilaa 25 daqiiqa ayaan ku haynaynaa. ilaah hadduu raalli ka noqdo. sababtoo ah cuntada gudaha jaawaaba diyaar, digaaga waa karsan yahay, qudaartana dab maba u baahnaba. daayga korona aad ayaan u jilciyey oo dab badan ma xamili karo. khiyaarta halkan waxaa diyaar noogu ah qajaar, sidaan idiin sheegay natural yogurt oo Greek natural yogurt ah. waxaan ka sameynaynaa dressingkii lagu cuni lahaa ayaan rabaa inaan sameeyo. inta waxaa diyaar noogu ah garlic powder, waa arki kartiin oo maleynaa. okay, halkaanna waxaa diyaar noogu ah paprika powder. so hadda yogurta ayaan halkan ku shubaneynaa. qiyaasta hadba intaad qiyaastiina ay tahay idinka ayaa iga og. waa ila socotiin oo maleynaa. so halkan ayaan ku qasanaynaa insha allah. famil kasta intuu ka kooban yahay qiyaastiisa ayagaa og. marka ani ma rabo inaan badiyo. halkaasaa noo sii yaallo. hadhow haddii loo baahdo barkay waa samaysan kartaa. qajaarka ayaan jarjarayaa. hadda aan foolayaa. ma loo baahna wax badan. halkan aan ku kor darsanaynaa. okay, waan isku qaseynaa wax yar oo ilaah hadduu raalli ka noqdo cusbo ah ayaan u baahannahay. wax yaraan macno lahayn. testigaas unbaa laga rabaa. iyo garlic powder
asna wax yar le dhanaan yar le laga rabaa testigaas isaga badinaysid واو إنه عادي معه هذا مركب وحن كدرينا وحير بابريك بودر وروحين لي وايه ما هو وح والربعين وجدين عملنا يا شاكد انت سير كنا معتنا مركب وحن سجنابه rootiga iska daboolnaado wuu iska sii xaf inuu sii fuuraan rabaa uu sii kaco iyo marka alla markay ilmahayga yimaadaan kii shaqo ku maqan kii jaamacad ku maqan markay isku yimaadaan ayaan rabaa inaan foornada geliyo asagoo kulul ay saas u cunaan marka hadda dressingkeeni waa noo diyaar waxaan sugnaaba waa rootiga inaan dubanno khiyaarta xoogaa waa inoo daboolay waa kaasa foornadeena way noo shidan tahay hadda marka waxaan kor ka marineynaa 2 xabo ukun ayaan qasay marka waxaan rabaa kor inaan ka mariyo waa u jeediin si color gold oo qurux badan uu noogu soo baxo marka aan soo saareyna ilaaha hadduu raalli ka noqdo mid kasta saas ayaan u marineynaa waxaan u maleynayaa inaad ila socotiin waadna ku mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah ee aada isiiseen iyo supportigaba axsaabta qaaliga ah mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin leeyahay aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin waan idin jeclahay foornadeeni waa aad 170 degree 20 ilaa 25 daqiiqo ayaana ku hayneynaa saan hore idinkugu sheegay sababtoo ah burkeena waa soft ma u baahna dab badan oo xoog adaadis waay aan ooga dhigay 170 dab badan ma xamili karo sababtoo ah burku ka jilcan yahay uu ka soft yahay uma baahna dab aad u kulul waa ujeediina umaleena khiyaarta xabadsoodaan kor ka saarneynaa haddaad rabto waa ka dhaafi kartaa bad qurxin ahaan ayaan u saareynaa iyo caafimaad xabadsoodadu waa jeclahani mana ka badineyno hadda waan gelinaynaa marka insha allah xabadda kale ayaan haddana marineynaa ukunta si mar alla markay noogu soo baxdo tan koowaad aan tan aan u gashan karno
waa markii ugu horreysay aan samaynayo. waa cunto aad u macaan fududna qof weyn iyo qof yarba carruurtana ay aad u jeclaanayaan markii loo sameeyo, sababtoo ah waad u jeedeen wixii aan gudaha kaga shubay. step by step waa ila socoteen. ilmaha aad u jeclaanaya markaas saan oo kale aad ugu samaysid. maaha cunto culus maalin kasta in la cuno. markaasaan ugu samaysid ood ketchup iyo mayonnaise-na gees u saartid, ilmaha aad ayay cunayaan, waan jeclaanayaan. ilmaha cuntooyinka culus waxay ka jecel yihiin waxyaabahan fudud ee simbalka ah ayay ka jecel yihiin. bal ila fiirsada hooyooyinka, ilmaha waxay ka jecel yihiin bariis iyo baasto dig laysku siinayo, waxyaabahan oo gees bataati yaroo oo loo dubay loo saaro ketchupkooda ama dressing yar geesaha loo saaro, waxyaabahaasay jecel yihiin ilmaha oo dhan. habeena uu kaas noo soo baxo ayaan haddana kan gashanaynaa insha allah. marka waxaan sugnaaba waa qaybtii hore. markay noo soo baxda ayaan isla arkeenaa quruxda iyo macaanka iyo dhexdaan ku kala dhufanaa si gudaha sida farmaajada ugu dhalaashay iyo aan isla aragno insha allah. axsaabta hadda waxaan gelinayaa qaybtii labaad ayaan owenka gelinayaa insha allah. waa kaasaa 20 ilaa 25 daqiiqo ayaan sugeynaa insha allah. kadib ayaan isla arki doonaa sida uu ku soo baxo hadduu ilaahay raalli ka noqdo. hadda waa inoo diyaar, waan soo bixinaynaa insha allah. sidaas ayuu ku soo baxay. marka hadda waa in aan jarjarnaa. isla soconnaa qiyaadta. I hope inaad si fiican u arkaysiin. waxaan inoo soo dhaweynayaa kaamirada. hadda waxaan geeska ka saaranaynaa saladkii aan gudaha ka geliyey unbaan ansalaato kale ma jarjareyna. saladkii gudaha aan ka geliyey aan gees saaranaynaa. dressingna waxaan ka dhiganaynaa yogurtii aad ogeedeen habkaan u sameeyey. soo dhawaada qaraabiya axsaabba. cuntadeenna caawa cashada waa wax fudud oo habkaan u sameeyeyna aad la socoteen. ku soo dhawaada Kawawa Food Channel. adduunka meel kastoo aad ka kala joogtaan waxaan idiin rajaynayaa caafimaad iyo cimri dheer. akhyaarta haddaan dhexda ka kala jaro horta waa idin tuso. dhexda markii laga kala jaray sidaas ayuu ku soo baxay. jiiskii wixii dhan baa gudaha kaga jira. marka waa inaan dhadhaminaa. bismillaah bismillaah. ilaahu intaan haysan si inta haysatana
u barakee annagana noo barakee kusoo dhawaada Kawawa Food Channel adduunka meel kasta aad ka kala joogtaan waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah ee aad ila wadaagteen iyo supportiga aad isiiseen iyo dhiirigelintaas aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa soo dhawaada like-ga commentiga subscribe-ka share-ka gambaleelkana waa xaggiina bon appetito cuntadaana waa raaliga noqdo cuntadaana waa cunto qof weyn jeclaan karo ilmaha yaryarna ay jecel yihiin barkee waan ognahay ilmaha ma jecla baasta bariis waxyaabahaas waaweynka waxyaabahan ayay ka jecel yihiin hadday aragtidna gees waxaad u saaraysaa mayonnaise iyo ketchup aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin habeen wanaagsan